aad buu u dhaxayaa waa runta waxa weeyaan sanadkii hore kurkurid inta babaleekay kurkuridii baa soo korodhay haddii soo korodhay waa in cashuurtiina la korodho horumarkii baa kordhay waad garsooma dakhligii baa kor u kacay bariga hore iyo ku shilba ka qaadi jireen waa bay koray 500 iyo waxba ahayd hadda kor bay u qaadeen way qaadi karayaan oo dhaqaale jira oo aad buu fiican alxamdulillah waana u ducaynaynaa marka waxa weeyaan halka farqiga u dhaxeeya waxa weeyaan miisaaniyad marka loo doorasayo tii hore la eega maxaa kordhay heerarkii maxaa buuxsamay haddaanay buuxsamin halkeedaas lagu deynaya hadday soo dhaqaalihi kor u kacayo heerkaasi aw dhaqaalihiisa yimi ama qaarkood dhaafeen marka waxa weey waa la gaarsiinay marka waxay noqotay marka dakhliga ka soo baxay xagga kurkuridu inay halkeedii soo dhaaftay kurkuri badan la iibsaday oo boqolkiiba 30 ay kordheen kurkuridii oo maanta meel alla waana sababta uu kaliftay inaan in out sameeyno gurigeegun maaha meel ka sii shiideen aqal xumo u geysay xataa dawladda hoose aan joognay marka shaqadii waajibka ahayd baan gudayna xogayaha iyaga sameeyaashu ay ku jireen waxa la yidhoon qaar baa ayaa yiri guri buu dhisay ma soo shiidnaa waa arrin deeqaaf ay ahayd waxna mas'uuliyadda ku saamaxayna wixii khaldan ee aan la dhaafi karayna ummadda sumcad xumo u horseedayna talaabo sharciya laga qaadaya in gudoomiye waxa kale oo jirta qolooyin aday boob loo geysto qolooyinka waratada ay kamid yihiin ganacsiyada yaryar waa la boobay kuwa laftooda idinka maxay idin ka qorsheeyay waxa nooga qorsheysan cidii boobtay waxa weeyaan cid aanu qayb ka hayno wax alla wixii khasaare yimi cid xidhan baa dusheeda ay tahay hadii gaari la jabiyay haddii guri la boobay haddii warato khudaar laga cunay qaar baa muus cunayo yaacay kuwaasoo kale maxaa lagu deyn karaa waa inaan qaqabanno waa in laga soo daaciyay wixii ay xaaraantay cuneen taan lagu deyn ma ummadda dhaqan xumo ku horseedayaan kuwa wanaagsan waxaan leenahay khayr allah idin siyaasada uga hadheen kuwa isku cunay uga hadho khayrka Allah idin waafajiyo hadana waxaan ku soo dhaweynaa